live trading keeni maanta oo Monday 28 July suuqa Asianka ka trade garanay saddexda lacagood ee waaweyn EU-da, GU-da iyo Goldiga mid kastaba trade baan ka qaadanay sidaan isla arki doonana trade kasta afterkiisa iyo beforekiisa sida ay u taqaanaan iyo cadeynta insha Allah waan tusin doonaa trade-kan waa EU-da sida arkaysaan 2RR waxa weeye trade-ka si aad u qurux badan oo nadiif ah noogu dhaqaaqay anagoo markaa ku qaadanay BDC strategy trade-ka beforekiisina waa kana sida arkaysaan EU 15 minute time frame sell limit-ka halka uu noo yaala ayadoo aanu suuqa imaninba trade-kaanu ka sii qaadanay markaa ama order-keena aanu ka furanay ugu dambeynna trade-ka ee dhaqaaqaysa iyo waxay uu ku dhamaaday waa idinka ay la wada arkay sidoo kale waxaan ka trade garaynaa ayadana lacagta GU-da Allahu musta'aan ayadana sida arkaysaan trade-ka si aad u qurux badan oo 2RR una siiyay trade-kana beforekiisa GU-da waa kana British pound ama GU-da 15 minute time frame halkii uu sell limit-ka noo yaala iyadoo aanu suuqa imaninba oo order-kaanu ka furanay ugu dambeynna waa idinka arkay trade-kii waxa uu ku dhamaaday sidoo kale maxaan ka trade garaynay lacagta iyadana Goldiga labada marka 60 bp ay isku yihiin 28 bp iyo 32 bp waa mid ka helnay marka 60 bp isku tahay trade-ka Goldigana waa kana isagana 60 bp kana isagana ka raadinaynay oo ICI aan ku qaadanay sida halkan ka arkaysaan isagana alxamdulillah sida arkaysaan full target buu na siiyay oo 60 bp trade-kan beforekiisina waa kana sida arkaysaan halka ka qaadanay yacni dhanka MT5-ka 0.04 baa trade-kan anigu aan ku baagiray SL-ka waa arkaysaa iyo TB-geena markaa 60 bp ah so alxamdulillah so asbuucan si aad u qurux badan baa ku bilaabanay ilaahayna maado dhan u sugnaatay nabadgelyo